أجمعين. ما أنت وحنا سووا نمت ختنك قرآن آخرسكي علماء نقدم بيسا سيارة ذي شيخ كوباد وحاجي آدم محمود iyo xafiidkiisii Cabdullaahi Macalin oo halkaan la rabo in lagu xuso marka insha Allah ta'ala hadii Ilaahay idmo waxaan rabnaa inaan qaadano laba kelimo oo ku saabsan horta Xaaji Aadan Maxamuud muxuu ahaa wadanka muxuu u qabtay diinta muxuu u qabtay Xaaji Aadan saan ognahay magaciisa waxa la yiraahdaa آدم محمود قوليد نصب كيسة قفنا لو شيء ما يوالا يقانا وانين حسانية وانين محمد مدار كعيسى وانين كسو تيدا باشا اللي هذا هوي أضغس هوية اللي هذا مقعيسى وحالي ترى أحمد ابن إرر على له تري هوينا ما هنا وحال له ترى الحاوي من عالم أيوها سدا أي تاريخ ذو قريسو الحاوي أنت أي هذا مركو هاري الحاوي للعلوم علوم تمت كوباي وها مجلس رسم مجانا أحمد على له تري ابن إيرر ابن عبد الرحمن ابن صمال على له تري مركا هاوي ماشي هذا حاوي أي هألو بدل واحد اللي يري هوي أي دهان مركا أضاق صمال اللي هذا مجلس عثمان على له تري عثمان كاس ابن محمد ابن حنبل ابن مهدي ابن أحمد ابن محمد ابن أكاد ابن عقيل ابن أبي طالب تسوى الله شاقا وأن كسو قابسان إن مركا أبترس كيسا شيخة انتا سوقلا شيخة ماشي أو كل شيء ضدكو تاريخ ذا حاجي آذان إلهي هاتن ومبضنا ماشي حاجي وكل شيء إن ضدكو شاقان لكن أنا وحان روحها للسند wuxuu ku dhashay sheekhu tuulada la yiraahdo labi dhoobad odayaashii waa yaqaaneen say ila tahay waxay u dhaxaydaa la yiri warshabo iyo ceelbuur ay u dhaxaysaa la yiri waliba ceelbuur ay u dhowdahay la yiri labi dhoobad la yiraahdaa halkaas oo sheekhu ku dhashay la yiri sida sanadka uu qoraayo aan ku soo guurinay sanadka ku soo guurinay sheekhu marka sanadka uu dhashay hijriga waxa uu ahaa 1307 waxaa laga joogaa hadii la fiirsho taariikhdaas hadda waxaa la maraa 1444 sano la maraa waa muddo 120 sano ku dhawaada 120 sano ku dhawaad ama 115 sano ka badan ayaa laga joogaa sheekha dhalashadiisii taariikhda miilaadigana waxay ahayd taqriiban ahaan 1889 كون سديد بقول سديتن يا سجالكي أيو شيخ ولا شيء ميلادي تقريبا شيخ أسقو ير أيو أبيز دنتا ليري أقولني بقصة برباري وحال سويديا مركز شيخة أي علماء الروايات كسكو خلافان ضد مركز ويدي سيد شيخ لسه سمنتمي نكيل لو ويدي قرآن برشاد مركز وبالله باي أنت ولا أكها أذوق سدح رواية والله شاقة إنه قان جاري والله شاقة inuu qaangaar u dhawaado 14 jir 13 jir oo waa la sheegaa inuu dhaafayo 16 jir 17 jir oo inta waa la sheegaa sheekhu ilaahay haatan ma aanan helin macalinka quraanka uu ka bartay xaaji aadan ilaahay haatan ma aanan helin macalinkiisi quraanka ka bartay oo quraanka uu ka bartay qofkii hayaa hona insha Allah ta'ala waan ka warsugeynaa biidillah kariim inuu nagu soo beeriyo sheekhu markuu quraanka xifdiyay ka bacdi cilmiga inuu barto diiniga ah ayuu ku tala galay diinta islaamka inuu barto وحنا وحبرشة كبلابي شيخو مدرسة شيخ علم ما يوهي تري أيو علم وآذي وكتها اللي مقالة اللي يرى هذا مركا هل كاس أيون الشيخ علم برشة كبلابي وحنا كجاري قيب في عن أيو علم كبرتي شيخي شيخ علم ما يوحوك أكبر تلبضع علمي واللي يرى هذا علم ظاهر كي علم باطنك علم ظاهر كي علم باطنك markay sheekhu oo ku noqday labadaas cilmi daahirka iyo cilmi baadinka markuu imaam ku noqdayna oo sheekhu uu macnaha ehel u noqday inuu ummadda wax baro ummadana tarbiyeeyo sheekhiisa Sheekh Calmay wuxuu amray inuu wadankiisa u soo laabto dadkiisa soo aado sheekhiisina waa u soo ishaaray inuu ummadda tarbiyeeyo ummadda diinta ugu yeero waxa la isweydiiyay markaas xaaji aadan markii uu soo laabayay cumrigiisa qiyaas ahaan inta uu la ekaa 22 sano ugu badan
واتران روايات كله لكن سي عمره كوب 20 جير شيخ inuu ahaa inuu dadkiisa ku soo laabtay markaasna uu diintii ka bilaabay halkaas markuu shiiqu intuu san imaan xaaji aadan wadankaas kaadad macaalim diin tantamis min tilka al-aqdar waxay u dhawaatay diinta macaalimteeda oo dhan in meelahaas ka tirtiranto ay u dhawaatay ilaa shiiqu uu yimid ee uu dhiibay ummadda inuu wax baro oo uu ku dadaalo dugsiyaal fara badan oo furo madaaris fara badan oo furo ummadda kuwoodii yaryara iyo kuwoodii waaweynaa oo yiri kaalaya waxbarashada u kaalaya waxa meeshaas jirta xaaji aadan ilaahay ha u naxariiso subxaanahu wa tacaala waxa joogtay culumo waaweyn oo dadka ku dhex jirtay oo cidda ku jirta waliba oo xaajiga ka soo horeeyay way jireen laakiin si aan khulafana ahayn dadkan aan si fiican u dhex galin way jireen macnuu marka ma aha in xaaji aadan oo diinta ummadda ugu soo horeeyay ma ahayn laakiin si diintu ummaddu way haysatay diinta ummaduna way macnaha way yaqaanay waana ku dhaqmi jireen waana isku nikaaxsan jireen waana isku guursan jireen culimadu waa ku yaraad laakiin culimadu waa ku yaraad in dugsiyaal fara badan oo quraanka lagu barto la asaaso in haddii alla idmaayo meelo dhikriga iyo culumta lagu barto tasbiixda lagu akhriyo in waa yaraad aad bay u yaraad laakiin si culimo way joogtay sheekhu halkaas wuxuu ka wadi jiray diinta waxaana la kulmay dhibaatooyin fara badan sheekhu waa uu la kulmay intuu diinta oo waday waxna waa ka taaban doona insha Allah taala hadii ilaahay dhibaatooyinkaas sheekhu marka wuxuu ku dhintay magaalada Muqdisho ayuu ku dhintay ilaahay haatan ku duugan yahay bishan hadda aan ku jirno 18 bishan aan ku jirno safar 18keedii ayuu sheekhu dhintay sanadku marka wuxuu ahaa 1370 sheekhu dhintay 1370 haddana waxaan soo qaadanay sheekhu inuu dhashay 1307 halkaas waxaad ka fahmay sheekhu umrigiisa waxa waa 63 sano wuxuu kaloo sheekhu dhintay taariikhda miilaadiga ah 1951 waa intaan xurriyada la qaadan 9 sano ka hor intaan Soomaaliya xoroobin oo gumeystii aysan ka xoroobin 9 sano ka hor bay ahayd habeen arbacaad oo sheekhu dhintay waliba bacda al-cisha waliba cishaha dambe culimada gobolna waxay sheegaan sheekhu inuu ku dhintay sujuuda labaad asoo ku jira asagoo cishihii dukaaya sujuudkii labaadna asoo ku jira inuu dhintay waa la sheegaa sheekha marka umrigiisa hadii la yiraahdo al-hilaal al-qamariya ama taariikhul qamariya taariikhda qamariga hadii la yiraahdo waa midan ka bilaabatay sako kuna dhamaata dilxija ama carafa ku dhamaata sanadkaas qamariga sheekhu 63 sano ayuu jiray sida nabigeena umrigiisa oo ahaa salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu kaloo sheekhu jira la yiraahdaa taariikhdan miilaadiga hadii la fiirsho 68 sano waa la sheegaa 68 sano ayuu sheekhu jira taariikhdan shamsiga ah 68 sano ayuu jira taariikhdan shamsiga waxa waaye waa midan miilaadiga hadda marayda 2022 mid hadda maraysa waa marka waxa jirta sheekhan xaaji aadam sheekh oo wax ka bartay mashaayikhda oo wax ka bartay waxa la sheegaa taariikhdu waxaan ku haynaa ilaa haatan markaan baxthi far badan sameeynay ka bacdi xaaji aadan hal sheekh ayuu lahaa waana sheekhiisa murabbiga ahay al-caalim ar-rabbani الشيخ علي مي شيخ علي مي إنه شيخي سيهاي أو دين تكسر برتي طريقة كسر قاطي هل كاسن كهينا ولم نجد له شيخا آخر شيخ قالوا شيخ وحكى برتينا إلى هاتن ما هينه سياس درتد هدي أي ترتو إن حاجي هذا الشيخ قال أولها وحن عدسنا إن الله صور قليو إن شاء الله تعالى هدي لها يضمو سي أنا إذا بحث قصة من بإذن الله الكريم شيخ علي مي حاجي آذن أسوي حرتي سكميدة واحترامي جري احترام وين أي وهي جري لأن أكو كرسونا هذا كور وحيش شاقي سنة كي وقرية هاي وحويش شاقي وحويري وحيش كوي الشيخ لي الشيخ علي تبعالي محمد الشيخ علي تبعالي محمد وريق جديدة هاي صاروا ملاي هاي إيش كيو يري وحرت الشيخ علي ما يكمل هاي وحويري أنا كو صدح نما الشيخ علي ما يوحويري ويري وحال إيش شاقي حاجي هذا اللي حرتي إني سوقلا يانو سودوي هينو أي مقالات مرك سودوي هينو qofkii ugu horeeyay soo shaaga ilaahay jannada ha galsho ilaahay ilaahay waxaan uga baar ilaahay jannada galsho wuxuu yiri shacali taala marka waan tagnoo yiri saddexdeen nin waa orodnoo yiri ninkii noogu horeeyay noogu orodka badnaay wuxuu istaagay magaalada banaankeeda
inta annaasan u taagnay waxaan sugaynaa hor xaaji aadan iyo xirtiisii farda soo socda iyo geel soo raray waxaan sugaynaa hooyo keeni nagu horeey marka uu arkay oo soo ordo yiri kii dhaxa hadana soo orday kii kale hadana oo saddexdii ordayna aan u tagno macna shaacala ma dhahan xaaji aadan waa soo galeen marka wuxuu yiri faqaama sheekhu waa istaagay faraxan biqudumihim ila yurahibahum sheekhu soo dhaweeyo ayuu u istaago yiri marka halkaas waxa ka ogaahay darajada oo sheekh aadam ku lahaa xaaji aadan shaacala ma agtiis darajada ku lahaa maqaamka ku lahaa wax sahlan ma ahayn nin sheeqiisa oo leeyahay asaga xirtiisa soo galeeyay hal iga warso dadkeena kala ma ahayn dadkeena ma ogtahay dad waxa waaye ilaahay ku ibtireeyay culummo nacayb ilaahay ku ibtireeyay subhanahu wa ta'ala ama samaahan hada Allah idmaayo wahabiyina ku jirta ummadeena sida badan baba waa iska talaalada wahabiyanimadu hadii la arko nin sheeqiisa soo dhaweey waxa leeyahay macaabudaha leeyahay hadda وعابدها للي شيخي وعابدها للي شيخي ضو احترامه وحال للي شيخي سوء احترامه مركا واخبرني ما اثق به قف ان كل سنه وحو ايشاغا وانا سنه كان ku qoranta asna wuxuu iishaga asna shacale may markii waqtiga siyaarada la joogo xaaji aadan wuxuu dhibatay boorsada iyo furaheedaba boorsada waxa ku jira iyo furaheedaba xaaji aadan u dhiibtay xirta kala dhan xaaji aadan u dhibatay u dhiibtay yahay adoo fiqatan bihi kalsooni sheekh oo ku kalsoon yahay مع ما في تلاميذي أيضا اللي أجيه حاج معناه شعال ما يحرتي سوى حكسنا من العلماء إلى جل أيضا العلماء وين كسبنا عيان هل كسر حاجة سوى قاب سنة إن الشيخ مشايخ دي سي وشعال ما يكسر قابني أما تلاميذه شيخ تلاميذ دي سوى كبرتي فحدث ولا حرج قفكو وكشة كرتا معناه واحد بكاسو جاري مايان محايا الحاج هذا حرتي سي ومضى ديجان كان أردن أكثر كود أما كل جود أردن بابا أما أبيه ساهاي أما أسجاهاي أما أبوه ساهاي حرتي حاجة هذا محايا لي شيخ دين القرآن iyo culumta faafiya asaga ugu badnay xaaji aadan eriyadan culumadii dambe waa ka dambeeyeen culimada hadda aan maqlayno dhan oo eriyadan joogta way ka dambeeyeen aktharkoodii ka dambeeyeen inkastoo culimo ka soo horeeyay ay jireen culimo weyn oo ka soo horeeyay sheekha waa jireen oo meelaha diinta ka nashri jiray oo deegaanka oo dadka ah laakiin xaaji aadan sida badan ka qayb qaatay nashrinta quraanka iyo nashrinta cilmiga waxa kamid ahay sheekha ragga wax ka bartay rag anigu aan la kulmaa jirta dadku waa yaqaaniin ilaahay uu naxariisto waxa kamid aha sheekh macalin daahir sheekh maxamed wardoon waa dareemi karaan dadku abtiriskaas way dareemi karaan waa nin waxaan kula kulmay maalin axada 24 bisha 12aad 2006 waa 2006 waa mar laga joogo 18 sano mise 10 iyo adugu on 6 sano saa laga jooga 16 sano laga maya soo maaha 16 sano laga jooga 16 sano laga jooga waxaan kula kulmay 24 bisha 12aad 2006 waxaan kula kulmay tuulada la Miroon sheekhaas la yiraahdo sheekh macalin daahir sheekh maxamed wardoon la yiraahdaa ilaahay uu naxariisto buu dhintay marka duhur iyo casr ayaan la dukaday ظهر يا عصر كاسنا أسجع نجب بحيي شيخ مع الظاهر شيخ محمد ورد أسجع نجب بحشي ظهر يا عصر أنتوا دحيدنا وين شيء كيسرنا إلى عصر كي بعد إلى توسع على جالس وجاري توسع يبر كوي تبانك حتى إن اللي جارن عليها شيخ مع الظاهر شيخ محمد ورد روحه إيش شاقي أنا جا أنه كان في هذه القرية تولد ميرون إنه دجناي شيخه لحدا سنة حاجة هذا نودت يا ماشاس أو يرو قرآن ككدك أمض أنت لحدا كاسن أمض وحو يري أمض قرآن كان برا علم كان براي wuxuu kaloo ii sheegay sheekhaasi ii sheegay in niman badan oo khulafa ah ay u soo cidiraan ay dhahan khaliif aan ka dhigno waa sheekh macalin daahir sheekh maxamed wardoon khaliif aan ka dhigno inay dhahan oo diiday oo ku diiday sababtu ay ahayd inuu yahay khaliif xaaji aadan inuu yahay waliba waa ii sheegay nimankii risaalad u soo diray rag fara badan oo iga sheegay insha Allah taala kitaabkan laga faa'iideysan doona biidnillahi kariim hadii ilaahay suurta galiyo كتب فربضنا وهي تأسيسية لكن سماشان كقرانة لكن سماشان كشيء ما بإذن الله الكريم أو حتى يري كتب تصنع عاص حاج وأخرت رقاب كاس وأخرت تأسيسية حتى وان إيروان تأسيسية كتب تاس هي قرآن حتى ذلك الله صار أو ذلك قبل حتى إيسان قورين وهي تأسيسية لكن إن شاء الله تعالى ماشان كبشيء قدوانا بإذن الله الكريم إليها ونحرس الشيء خاص ودنتي دور سرك بعد ودنتي الله يشاقي لكن ما أنا هي التاريخ أو دنتي لما أنا حريرين ماركي أنكسوتك بعد لما حريرين صوت أيتها تلفون مترين بريجاس تلفون مترين ماشي نمل بهجويات حتى وحنا كلوا إيش شاقي إن ماشي مجال أو دجانا ميران القرآن ككل جت لحدا كالسنة إنه أجو يمد نكي شباب كمان ملوا تري مع الآن حاشا عير إنه أجو يمد
waxyaalo fara badan ay dhex mareen laakiinse geli mayno ayadana insha Allah tacaala waa qorantaa biidnillahi alkariim taariikhdaas ayadana waxaa kaloo ka mid ahay xaaji aadan mashaayikhda wax ka baratay wiilkiisii sheekh axmed nuur xaaji aadan sheekh axmed nuur xaaji aadan waxaa wax baray cilmiga sheekha la yiraahdo xaaji aadan sheekh axmed nuur sheekh kale waa walaayo waxa uu sheekh ahay sheekha la yiraahdo sheekh aadan axmedna sheekh uu ahaa sheekh aadan axmedna sheekh uu ahaa sheekh axmed nuur xaaji aadan wuxuu dhintay bisha mawliid bisha maalmadoone 12keedii habeen talaadaad 6 saac ayuu dhintay sanadkuna wuxuu ahaa 1995 hijriga ma hayo insha Allah tacaala waa sala heli doona intaasna waxa ii sheegay wiilkiisa Siraaj Sheekh Siraaj ayaa ii sheegay insha Allah tacaala ugu wargeliyay intaas marka ayadana waxa laga faa'iideysan doona qisooyin fara badan xitaa oo ii sheegay ayadana waa qoran yihiin Sheekh Axmed marka wuxuu kamid ahay xaaji aadan ragii wax ka bartay xaaji aadan waxa kale wax ka bartay culimada taqaaniin oo kamid yahay sheekha la yiraahdo xaaji aadan حاتي محمد أحمد الليبان أحيا ودني نكي الله بحي حاتي محمد إلهي أون حارسه سبحانه وتعالى وحول الشيء كن سقال بقول إيه أفرتي كن سقال بقولي أفرتي وحول دنتي كن سقال بقول سديتر يسقال كي وسود هذا شيخ وسود هذا لكن سمر كودا شميع سندوين وحكلو كمية هاي رجي وحكبرتي حاجي آذن شيخ محمد يوسف قبضان علماء فربنا كمية مركب مسوق كوبي كارنو وارجع وح كبرتي شيخ مركز صفات ديسا شيخ السيد أو هاي يقاب كي أو هاي وحنوقت المامايا صفات ديسا أخلاق ديسا علماء دي الله معاصرنتي وحكملها الشيخ اللي هذا الشيخ محمد ابن يوسف قبضان أيا كملها مركز شيخ أو كهذا اللاي وحوت المامي إنه وها شيخه سخيا بالدقسية وأنا صفة العلماء وصفة الأولياء dadka ooriyada waxa lagu yaqaan waxay tahay waa sakhinimo sakhiyowha wuxuu leeyahay culimadu waxay dhigi jireen as-sakhiyu habibullah qofka dumar deeqsi yahay waa habibka ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu kaloo noo sheegaa sheekh maxamed yuusuf gabdoon sheekhu inuu daa'imi jiray salaada duhada hadda anaka waxa soo dagal anaka dukaankeena joogna masjidkii joogna in salaada duhada naga tagto duha aan kaana yarka ويسجد الليالي وصلاة الليل ودائم تري صلاة الليل كان ودائم تري وحنا كلون نوش شيء حاج محمد قبضان الشيخ محمد يوسف قبضان وحنا نوش شيء أصلا إن أو شيء أو أهل كرامة أهل كشف فكذلك أهل كشف إن ولها أهل كرامة إن وهنا وحكلوا شيء جاية شيخ اللي هذا شيخ عبد الرحمن علي فكم له من كرامات وكشف وكدهاية شيخ كرامات فربضان كشف بدن إلهي سي وكدهاية حاتي محمد أحمد الليبان لفتيسو أو كميدها حرتي حاجي آدم كميدها وحو كنت الماما إنه وها دليل الأذكياء ضدك عقلادة أردن هجاميه هذا الشيخ إنه وها إنه وحو كنت الماما وها رائد طريقة هجاميه هذا إنه هينا وكنت الماما وحو كله كنت الماما إنه وها ضبيب دواء النفس عذر معناه ضبيب داء النفس عذر كالنفط كلها الشيخ إنه الضبيب وها يداوي إنه وها نفطها سوترن وحيالها صدام كنت الماما وشيخ هذا الله إدمايو أنت أصلا وحنا قصوا قابسنا إن شيخ الصفات دي سي وحكوا كنت ماما إن علماء قبل حيليه كان مربوعا شيخ دحدحاض وها ندارنا ما هي نقابن لكم دقنا ما وصلهم مربوع أيوها دحدحاض أيوها جسنا وهاي اللي هذا الشيخ وحاجة مركز الشيخ حاسس فربنا وإسكالها حاسس كيس إلى أفر حسن أنا وهيا كبدن قفك هيا أنا ونسوي جلد وانا إن شاء الله تعالى هديلها يدمو أفرت حاسة دان كلا شاقنو إلى كان هو نحارسه سبحانه وتعالى وحكى بدك وضحي هذا اللي هذا مكة خير رشيق قولوا جياره ضدك ويدريبي كران وحين هذا شرق إذا شو حكمي شيخ أحمد نور مع المختار عبد الواحد وأصغر اللي جرى دنتي يو عبد العزيز يركله سلامة الله بالنا وحال وش قبر اللي هذا فاطمة أوجاس محمد فاطمة أوجاس محمد المه دشان waxaa lagu sheegay oo kamid aha